عليكم ورحمة الله وبركاته. سكسونا وناكسن maantana waxaan ku tusayaa sida loo sameesto Apple ID-ga cusub oo aad ku xiran lahayd mobilkaaga iPhone-ka. bal sida loo sameeyo Apple ID-ga cusub adigoon cidin bari adigoo isku day in aad sameysatid hadda kadib insha Allah. ila socod wanaagsan. Taleefankaaga saan markuu yahay isagoo cusub oo kala ka soo qaad taleefan markaas la furay waxa ku dhufanaysaa settings markaa ku dhufatid waxaa ku sii dhufanaysaa meesha ugu koreyso oo Apple ID-ga oo ka muuqdo oo ku qoran tahay sign in to your iPhone. Okay, is good. Markaa saan sameysid wuxuu ku leeyahay gali Apple ID. adiga wax Apple ID ma leedid sax? waxaa leedahay forget password. Okay, maxaa ku soo baxay forget password or Apple ID iyo create Apple ID. Apple ID create Apple ID ayaa ku dhufanaysa. Okay, waa ku dhufanay. First one muxuu ku leeyahay name, magacaada ayaa gelinaysa. liibano kale. Okay, magaca ku xiga ama nanes ama magaca kale ayaa gelinaysa. Okay, xagan waan ka qarin doonaa waxaa gelinaysa sanadkaaga xilligaalatid. Okay, kadib nagaysta markaa dhaadid waxaa gelinaysaa Gmail-ka aad rabtid inaad ku sameysid. Okay, Gmail-ka waan kaa qariyay. Gmail-ka markaa gelisid waxaad leedahay continue. wuxuu ku leeyahay gali password cusub. password-ka adiga aragtid ayaa gashanaysaa. password-ku waxaa muhiim ah hal xaraf waa inuu weynaadaa ama xarafka ugu horeeya ha noqdo mise xarafka dambe ha noqdo. kadib wuxuu ku leeyahay gali ama u sheeg lambarka aan kugu soo diri lahayn koodka. continue ayaa kadib leedahay lambarka koodka kugu soo dir automatic ahaan asaga ayaa isgelinaya. Okay, marka halka maraysid wuxuu ku leeyahay agree ma qabtaa mise disagree. agree baa leedahay agree. halkaas markaad maraysid wuxuu ku leeyahay sidan. yani asaga wuxuu sameynayaa oo raadinayaa iCloud inuu ku xiro. iCloud-ka markuu ku xiro kadib waxa ku soo baxaya sidan mobilka aad ku sameysay gali passcode-kiisa. Okay, aniga waa gali mobilkan ku sameynay passcode-kiisa. waa kaasa sidaas ayuu ku sameysmay. Okay, inaan xaqiijiyo ayaan rabaa waxaa leeyahay verify email address. yani koodka soo igu diro oo aqbalo email address-ka. kood ayuu i weydiinayaa mujada. koodkan wuxuu ku diray Gmail-ka aniga inta ku sameeyay ayuu igu diray. Okay, koodka soo qaad Gmail-ka meeyay waa kan soo copy garee copy halkan basta ku dheh. Okay, way diiday ever 835 ever 835. Okay, saas ayuu ku sameysmay Apple ID-gi adiga aad u baahneed in aad isticmaasho. hadda waa kaasa waa isticmaali karaa Apple ID-gi sidaas ayuu ugu xiran yahay. fadlan la soco qaybaha xiga kale soo socda. mahadsanid.